kulan wacan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaana waxaa kamid ah ku dhawaad 200 oo askari oo ka goostay Axmed Madoobe oo ku biiray ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uul si qarsoodi ah ku yimid Muqdisho ugu horeeyay oo la kulmay oo la ogaaday xogta dagaalka Cumar Filish iyo Wasiir Khadiijo lagu xaliyay faragelinta farmaajo Soomaaliya fardal oo kale oo wada qorshe dhaqaale oo ku kacaya 15 bilyan oo dollarka Mareykanka xiisad siyaasadeed oo ka taagan Garowe baarlamaanka Puntland oo la fasaxay iyo Turkiga oo shaaciyay inuu gacanta ku dhigay xaaskii Baghdadi qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan mar kale haddii aad ku cusub tahay fadlan xulashada wararka kusoo dhawaada ku dhufo gambareelka si aad u noqoto daawadaha koowaad subscribe saar aynu ku bilaabnay ku dhawaad 200 oo askari oo ka goostay Axmed Madoobe ayaa ku biiray ciidanka dowladda wararka aynu ka helayno gobolka Gada ayaa sheegaya in ku dhawaad 200 oo askari oo ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Jubbaland ay isku dhiibeen ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gado ciidankan isu dhiibay militariga Soomaaliya ayaa ku sugnaa degmada Balad Xaab ee gobolka Gado waxaana toos ugu amar qaadan jireen maamulka Axmed Madoobe sidoo kale wararka ka imaanaya gobolka Gado waxay soo sheegayaan in ciidamada Itoobiyaanka ay wada hadal la galeen ciidamadan lagana dalbaday inay tagaan Luuq oo isku dhiibaan ciidamada qaranka wararka waxay intaas ku darayaan in ciidankan ay hadda ku sugan yihiin xero ku taala degmada Luuq sidoo kale waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan gudoomiyaasha degmooyinka Luuq Balad Xaab iyo Doolo ee gobolka Gado kuwaas oo toos ugu xirnaa Axmed Madoobe balse hadda heshiis la galay dowladda dhaxan ee la gashay dowladda federaalka ayaa doonaysa inay kala furfurto mas'uuliyiintii saraakiisha ciidan ee toos ugu xiran Axmed Madoobe kuwaas oo ku sugan gobolka Gado wararka qaar waxay tilmaamayaan in madaxweyne Axmed Madoobe uu gobolka Gado u dirayo maalinta bariyaha madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamuud Sayid Aadan oo gobolkaas uu ka soo jeedo isagoo la hadli doona dhammaan saraakiisha iyo maamulka gobolka Gado una sheegi doona inaysan wax dhaqdhaqaaq u muujin ama sidoo kale wax la shaqeynaysan u muujin ciidamada dowladda ee gobolkaas ku sugan sidoo kalena aanan gobolka laga taageerin madaxweyne Farmaajo waxaa la dareemayaa in arrintaas ay ku cuslaan doonto shacabka reer Gado oo la rumaysan yahay inay taageersan yihiin dowladda federaalka aad ay u neceb yihiin Axmed Madoobe iyo sidoo kale Maxamuud Sayid Aadan oo beel ahaan ay ka soo jeeda balse maamulku la shaqeeya aad u neceb yihiin xaaladda ayaa kiran iyadoo sidoo kale wararka qaar waxay tilmaamayaan in ciidamadan lagu dari doono ciidamo gobolkaas ay la soo aadi doono Cabdinaasir Siraar Maax oo musharaxnimo ku dhawaaqay aadna u mucaaradsan Axmed Madoobe kaas oo la rumaysan yahay in dagaal adag uu gobolkaas ka sameyn doono xaaladda ayaa kiran iyadoo mas'uuliyiinta labada dhinac ay midba wax ku sheegayaan balse waxaa la rumaysan yahay in ciidankan waxa ugu dhaweey hadda la sameynayo ay tahay in lagu ogaado sirarka Axmed Madoobe uu ka damacsan yahay gobolkaas iyo sidoo kale in lagu daro ciidamada Cabdinaasir Siraar Maax ee gobolada Gado iyo Jubbada Dhexe uu ku qabsanayo sidaa daraadeed laba gobol haddii ay qabsadaan ay ka dhigan tahay in Axmed Madoobe kaligiis Jubbada Hoose uu ku harayo qaybo ka mid ah Jubbada Hoosena Al-Shabaab ay ka sugan yihiin xaaladda deegaanada Jubbaland ayaa kacsan iyadoo hore kacsanaanta kaliya ku ekeed Kismaayo balse marka hadda xiisadda waxay u wareegtay gobolka Gado iyadoo guud ahaan gobolka Jubbada Dhexe ay gacanta ku wada hayaan Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya inay ka dambeeyeen qorshahan ayaa la xaqiijiyo oo ay soo dhiibayaan ciidamada daraawiishta ku Jubbaland kuwa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxaa ka dhex taagan khilaaf adag oo ka dhashay doorashadii Axmed Madoobe dib loogu doortay waxaana la rumaysan yahay in dowladda marnaba aysan ogolaaneyn in Axmed Madoobe uu sii maamulo halkaas iyadoo sidoo kale olole ay ka bilaabayso magaalooyin kale ee waaweyn ee gobolka Gado oo lagaga soo horjeedo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ciidamada ayuu Axmed Madoobe aad ku tashan jiray waxaana dhawaan u booqday goobo ciidamo ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenkiisa koowaad ayaa booqday deegaano Baarsanguun ay ku jirto oo ciidamada uu kula soo hadlay saansaanta ugu badan ee Axmed doorashadiisa kadib uu ka cabsanayay waxay ahayd in lagu dhabarjabiyo ciidamada Jubbaland oo mararka qaar aan qaadin mushaaraad loo ballan qaado in mushaaraad la siin doono markana mas'uul ayaa si qarsoodi ah ku yimid Muqdisho ugu horeysay la kulmayna waa la ogaaday taliyaha ciidamada dhulka ee dalka Uganda General Beta Elwulo ayaa booqasho ku yimid Muqdisho waxaana uu la kulmay saraakiisha ciidamada Uganda ee ku jira AMISOM kulanka ka dhacay xirada ciidamada Uganda ee Muqdisho ayaa waxa uu taliya Beta Elwulo kala hadlay saraakiisha inay ilaaliyaan dhaqanka deegaanada ay ka howlgalayaan sidoo kalena ay dhowraan xirfadooda Beta Elwulo ayaa sidoo kale saraakiisha uu la kulmay gaarsiiyay salaan uu ku siday madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni waxaana uu sheegay madaxweynuhu inuu bogaadinayo shaqadooda Soomaaliya sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in hawsha ciidanka Uganda ee Soomaaliya ay sumcad u tahay dalka Uganda iyo guud ahaan qaaradda Afrika taliyaha ayaa ugu digay saraakiisha inay qaab daran u gutaan shaqadooda isagoo sheegay in sargaalkii lagu arkaa dhaqan xumo uusan ka mid ahayn UPDF-ta loona baahan yahay in wax laga qabto markana xogta dagaalka Cumar Filish iyo Wasiir Khadiijo ayaa lagu xaliyay faragelinta farmaajo
waxaa la filayaa in dhowaan la qabto ciyaarta finalkeed ee degmooyinka gobolka Banaadir taasoo 24 bishii hore u baaqatay khilaaf soo kala dhaxgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Khadiija Maxamed Deeriye war lagu kalsoon yahay oo aan helna waxay xaqiijinayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Sabtidii toddobaadkan fila Soomaaliya ku qaabilay Cumar Finish isla markaana ka dalbaday inuu u tanaasulo si loo qabto ciyaarta dhawaan baaqatay. Cumar Finish wuxuu madaxweynuhu u sheegay in ciyaaraha degmooyinka yihiin heer gobol wasaaradana ay shaqo ku leedahay heer qaran sidoo kalena waxa uu soo bandhigay qaladaad ka dhacay garoonka oo halis ku ah ammaanka kumanaan qof waxaana la codsaday inuu qaato dalabka madaxweynaha ee inuu tanaasul u sameeyo waana uu soo qaatay ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha dowladda hoose ee gobolka Banaadir. sidoo kale wararka aan helno waxay sheegayaan in Cumar Finish iyo wasiir Khadiija ay yeesheen kulan toos ah kadib markii dhinacyada lagu ballamay inay is hor fariistaan oo ay ka heshiiyaan waxyaabaha u dhaxeeya. kulanka ayaa la sheegay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen soo celinta wada shaqayntooda u dhaxaysa gobolkii wasaaradda isla markaana dhawaan la qaban doono ciyaarta degmooyinka Dharkeeley iyo Waaberi oo ku balansanaa finaalka tartanka degmooyinka. Cumar Finish kuma qanacsan heshiiska la gaaray waxaana uu ahaa mid cadaadis lagu saaray waase uu qaatay waxaana laga filan karaa inuusan heshiiskaas sii jiri doonin ay yiri qofkan oo aan la hadalnay oo ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir. xiisada labada mas'uul ayaa ka dartay kadib markii wasiir Khadiija Maxamed Deeriye markuu bixisay in la damiyo korontada garoonka Injineeriso habeenkii ay dhaceysay ciyaarta finaalka degmooyinka. garoonka ayaa waxaa gacanta ku haya shaqaale wasaaradda ay mushaar siiso. Khadiija ayaa la sheegay inay ka carootay in wasaaradda aysan kaalin laga siin qabashada tartanka gudoomiyaashii ka horeeyay Finish ayaa wasaaradda kaalin ka sii jiray ciyaarahan ayay Finish ayaa taas meesha ka saaray taas oo ka cadhaysiisay wasiir Khadiija Deeriye. xiisada siyaasadeed ee ka taagan Garowe iyo baarlamaanka Puntland markan waa ay sii socotaa baarlamaankana waa la fasaxay. Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa fasax 3 maalmood u diray xildhibaanada golaha wakiilada Puntland. golaha waxa uu magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood oo soo aroorin doona nuxurka warbixino kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay laga dhageystay guddi hoosaadyada baarlamaanka. xubnaha cusub ee la magacaabay ayaa isniinta toddobaadka soo socda laga dhageysan doonaa xog ururinta ay ka sameeyeen warbixinta guddi hoosaadyada golaha wakiilada. tallaabada uu qaaday gudoomiyaha baarlamaanka Puntland waxay kusoo beegmaysaa xilli mooshin ay ka wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland gudoomiyaha baarlamaankaas. madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf sababay in xildhibaanada labada dhinac kala taageera ay bilaabaan mooshin ka dhanaa labada mas'uul. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa la tilmaamayaa in xildhibaano badan oo isaga taageersanaa oo dalka dibadiisa ku maqnaa ugu yeeray in dalka ay ku soo xaroodaan soona gaaraan Garowe si mooshin loogu aruuriyo Cabdixakiin Dhoobo Daareed oo kaga codbato. xildhibaanada kale ee mucaaradka oo uu ku jiro Cawil Daad iyo xildhibaano kale oo Cabdiweli Gaas taageersanaa ayaa iyana bilaabay inay taageero u muujiyaan Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo la rumaysan yahay in dowladda federaalka taageero dhow u yahay. xiisada ayaa markan cirka isku sii shareeraysa iyadoo labada mas'uulba uu aad u careysan yahay midkoodba kanka kalena uu aad u mucaaradayo. Soomaaliya 4 dal kalena waxay wadaan qorshe dhaqaale oo ku kacaya 15 bilyan oo dollarka Mareykanka. 5 wadan oo geeska Afrika ku yaala ayaa isla sahminaya qorshe wadareed dhaqaale lagu rabo in lagu soo saaro raasmaal 15 bilyan oo dollarka Mareykanka gaaraya si dhaqaalaha kobac u sameeyo sidoo kalena ganacsiga iyo horumarka dadka gobolka ku nool sare loogu qaado. hindisaan dhaqaalaha sare loogu qaadaya waxaa ku midaysan dalalka Kenya, Soomaaliya, Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea waxaana heshiis ay ku gaareen bishii hore iyadoo goobjoog ay ka ahayn World Bank Groupka IMF kulankii sanadlaha ee Washington DC ka dhacay sida uu sheegay Bangiga Horumarinta Afrika African Development Bank. hindisaan kobaca dhaqaalaha 5 dal ee ku heshiiyeen waxa uu ku saleysan yahay 4 amiyadood oo ay mudnaanta koowaad la siiyo oo kala ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha isku xiran dalalka dariska ah in sare loo qaado ganacsiga isdhexgalka dhaqaalaha in la dhiso qorshe dhaqaale oo waara kaasoo abaaraha iyo hoos u dhaca dhaqaale laga hortagayo iyo in ugu dambeyntii la xoojiyo horumarka aadanaha iyo tacliinta. si loo horgeliyo qorshaha lagu heshiiyey waxa uu baahan yahay in dalalka 15 bilyan ee horumarka lagu heshiiyey lana haysiyo lagu gaaro. Khalid Shariif oo ah madaxweyne ku-xigeenka African Development Bank waxa uu tilmaamay heshiiska ay dalalkooda gaareen mid istiraatiiji uu ku tilmaamay sidoo kalena xambaarsan keed dhaqaale oo laga faa'iideysan karo. Khalid Shariif waxa uu yiri geeska Afrika juqraafi ahaan waa istiraatiiji muhiim ah maadaama dalalka ay maraan badda cas, badda Carbeed, badweynta Hindiya, gacanka Golofka waa goobo muhiim u ah socdaalka gobolka midka caalamka. haddii laga faa'iideysto isdhexgal sax ah la sameeyo waxaa ka dhalan kara awood dhaqaale oo adkaysi leh sidoo kalena ballan qaadi karto in wajiyo cusub oo barwaaqadiisa wata dalalkaas ay geli doonaan waxayna ka caawin doontaa dalalkaas inay faa'iidada iyo kobaca dhaqaale isla qaybsadaan sidoo kalena hindisaan nabadda ah hadda la wado waa mid inta badan gobolka dan weyn ugu jirto ayuu hadalkiisa ku sii daray. inta badan dalalka geeska Afrika ku yaal ay ku wada heshiiyeen
inta badan dalalkan geeska Afrika ku yaal ee wada heshiiyey waxa ay saameyn kobac dhaqaale ee qaaradda Afrika inteeda kale laga dareemay sanadkii hore 2018 wax soo saarka gudaha Afrika sanadkii hore 3.5 boqolkiiba ayuu sida guud u sare kacay waxaana xusid mudan in Itoobiya kobaceeda dhaqaale uu gaaray 7.7 boqolkiiba wax soo saarka gudaha halka Djibouti ay gaareen 5.6 boqolkiiba Kenya ayaa 5.9 boqolkiiba gaaray Eritrea 4.2 ayuu gaaray marka laga reebo Soomaaliya oo kobaceedu ahaa 2.9 boqolkiiba inta kale kobaca dhaqaale xoog ayay sameeyeen ugu dambeyntiina Turkiga ayaa shaaciyay inuu gacanta ku dhigay xaaskii Baghdadi madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dalkiisa ay qabteen xaaska hogaamiyay Daesh gabadha la dumaashigeed Mareykanku waxa uu sheegay in Abu Bakr al-Baghdadi uu isku dilay god dhulka hoostiis waxay bilaabeen ololo xiriiritaan oo ku saabsan arrintan iyo Erdogan ka sheegay xaflad munaasabad oo ka qabsantay jaamacad ku taala Ankara ayaa wuxuu Erdogan ka bixiyay tafaasiil dheeri ah haweeneydan oo marwadiisa lagu sheegay lama shaacin magaceeda balse waxa lagu qeexayaa inay tahay xubin muhiim ah oo reerkiisa kamid ah balse anigu waxaan kaga dhawaaqayaa halkan markii ugu horeysay waxaan qabanay xaaskiisa ma aysan dhibin sida iyaga lamida waxaan qabanay walaashiis Isiadigeed rasmiya Awaad Baghdadi walaashiis oo lagu qabtay waqooyiga Suuriya ayaa qoyskeeda kula nooleed container dhexdiisa sida laga soo xigtay saraakiisha Turkida ee qabtay bishii Agoosto ee sanadkan maxkamad ku taala Ciraaq iyo dil toogasho ku xukuntay gabar kale oo la sheegay inay la dhalatay Baghdadi balse lama soo bandhigin magaceeda markii ay xaqiijisay geerida Baghdadi ISIS ayaa iclaamiyay in Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi uu yahay amiirkooda cusub al-Qurayshi ayaa ka tirsanaa golaha shuurada ee Daesh guudaan daawadayaal waan inta warkeed kala socoteen xulashada wararka waad ku maasantiin wararkan aad la socotaan nabadgelyo